gelinkii dambe ee maanta ayaa waxaa magaalada Hargeysa ka da'ay roob biyo dhigay wadooyinka waxayna bilow u yihiin roobka guga ee la filayo in si diiran ay kaga da'aan dhulka Soomaaliya. roobka galabta da'ay oo bilowday 4tii ayaa waxa uu socday ilaa iyo 5tii barkii. bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si diiran u soo dhaweysay roobkan. qaybo ka mid ah deegaanada galbeedka ee Soomaaliland dhaca ayaa waxa 24kii saac la soo dhaafay ka da'ay roobabka ayaa ka da'ay qaar ka mid ah deegaanada abaaruhu ay saameeyeen. galbeedka Soomaaliland waxaa ka jira abaar ba'an oo sababtay dhimashada dad iyo duunyaba, waxayna dadku ay bilaabeen toddobaadyadii hore inay iskaga soo barakacaan. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa maanta u anbaxay deegaanada ay abaaruhu ay ku dhufteen.